Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta haddii alla idmo waxaynu ka hadli doonaa sida video aad haysato aad ugu kala goosan kartid internetka gudihiisa adigoo aan wax software iskaga duubin computerkaaga. Waxaan ku qoraynaa Google-ka search engine-kiisa cut videos online ayaan ku qoraynaa, kadibna ciwaanka ugu soo horeeya ayaan ku dhufanaynaa ka ku jira. Kadib marka halka timaadaan waxaa arkaysaan choose a file bay idin dhahayaan, ama waxaa dhihi kartaa waa soo drag garayn kartaa oo halkan ayaad ku soo jiidi kartaa. Marka isma dhibaysa haddaad doontid kana soo qaadaysaa eeg videoga saan baad ugu soo jiidi kartaa. Okay, kawa ku soo jiidi kartaa wakaa videogii soo galay. Haddii kale cancel halkan ka dheh, ks iska dheh, choose file dheh, kadibna meeshii aad ka soo qaadi lahayd ayaa tegaysaa, meeshii baad tegaysaa, kadibna halkan aad soo dhigaysaa wakaas. Marka videoska saas ayaad usoo gelin kartaan, waana very simple, wax weyn maaha. Videogii markuu soo galo kadib tallaabada ku xigta waxay tahay intee baad doonaysaa start, halkaa ka bilow, halkaa ku dhamee. So horta adeer videoga 00 buu ka bilowdaa wuxuuna ku dhammaadaa 751. haddii halkan aad yaro durkiso eeg way isbedelaysaa. halkani bilowga meeshaa rabta iga dhig baa dhahaysaa. bilowga tusaale ahaan halkaa iga dhig, wuxuu ku leeyahay daqiiqadaasan kaaga bilaabaya, kanna waa soo durkinaysaa. eeg labada meelood ee aad rabtaad geynaysaa. marka halkan waxaa ka arkaysaa caadiyan wixii oo dhan halkaasa ka arkaysaa. quality-ga waa soo furi kartaa, waxaa ka dhigi kartaa 720p pixels, waxaa ka dhigi kartaa sida kii hore oo kale isku tayaha noqdaan. markaa intaa dhammaystirto videogaagii intii aad rabtay aad ka dhigatid, waxaad samaynaysaa waxa la yidhaahdo save ayaa leedahay, waa save garaynaysaa. markaa save garayso kadib waa soo download garaysanaysaa. waa intaasoo keliya. marka waxaa la samaynaya